السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka qayb galo gabadhii yariista ahayd oo kufsiga loo geystay ay ka dhacday Galdogob. aniga waxaan uga hadlayaa sidii dadka uga hadleen caawa si ka bedelan ayaan rabaa inaan uga hadlo anigu aad uga xun wixii meesha ka dhacay iyo wixii gabadhii yariista loo geystay iyo wiilasha yariiska khaladka geysteen waa wiilal haddii masuurkooda arkay ka yarayn ka weynina ka wada 10 sano 9 sano iyo wixii la mid ah gabadhu intaas oo kale ahayd ciyaal khalad ka galay ahayd ciyaal khaldamay ahaayeen wiilal yar bahaayeen oo wixii caawa soo hadlay ay wada dhali karaan wixii caawa soo hadlay wiilal dhali karaan baa yar qof weyn oo dhigi karo waxbuu kufsaday waxbuu sameeyay kan buu ogaa ma hayn marka aniga daawaday masawradooda fiiriyooga ma daawanin mana u maleynaa daawanayo waxaan waxay dhacday sanadkii la soo dhaafay 2016kii hadda 2017 baa la marayaa mar hore dhacday waxaa maanta in la soo cusboonaysiiyo dhibaatadan iyo dad iyo families la dhashay oo degan magaalada Galdogob gobolka Mudug Puntland waxa waaye waa dad in la isku diro la rabo waxaana ka hadlay waa dad cadowga Puntland sida aniga u daawaday waa cadowga Puntland wixii caawa ka soo hadlay waa cadowga Galdogob wixii caawa ka soo hadlay nin naxariis uga hadlay gabadha yariista ma jirin haddaan moodayna iska hadlaayo kuwa kamid ah waan daawashinaya hadda daawanaysaan waa ila daawanaysaan bal waxay ku hadlaayaan diinta caynayaan waalidka gabadha dhalacaynayaan qof walba ku nool magaalada caynayaan gabadha caynayaan wax ay la harayaan malaha waxaan la yaabanahay oo iga siiyay oo maskaxdayda ka weynaatay ninka la dhahayo Carab oo u shaqeeyo Dahra Calisow oo hinbu iska keenay oo hin balalalala haddii daacad ka tahay ninkaas hadda dhow markii Yurub la keenay waxaan 2 sano dhameen ka hor baa Yurub la keenay markii Yurub waxa lagu keenay gabar ayaga la shaqeyn jirtay oo Muqdisho joogtay oo wariyaha kamid ahayd oo la kufsaday ayaa lagu keenay saaxiibadiisa ay kufsadeen mission ay ka dambeeyaan asaga iyo dadka saaxiibadiisa asxaabtiisa ayaa loo keenay gabadha in ila waa la kufsaday ama la kufsado ayaga la xiro saas ay Yurub ku imaadaan UN ta lagu weydiisto gacanta loo horsado si dadka Soomaalida oo dhan ila madaxda ugu sareysay iyo anaga oo anigaan ku jiro gacanta u horsano ayay gacanta u horsadeen waxaan ahayd laga soo shaqeeyay dadka Muqdisho degan anaga waa naga aqli badan yihiin waa naga horeeyaan waa naga tafsan yihiin wax walba si loo bedelay yaqaana meelaan anaga hadda waxa ku jirnaa 2018 basi marayaan waa dad loo gali kara ma aha ninkii gabadha la kufsanay joogay oo maalinna ku ooyinay saaxiibadii sheeganay inay ahayd gabadhaas maalinna ku ooyinin sidoo maanta uga hadlo uga dhiidhiyay ilmaha yariiska khalad ka galay uga muudhiidin haddii daacad jirto Dahra Calisow iyo asxaabtiisa kama hadlin dadka loo yaqaano alhaybsooc loo yaqaano in laga fara badan yahay Muqdisho ku nool ayaa waxay dhacday waxaan weligeed adduunka ka dhicin abad adduunka ma dhicin wala Soomaaliya iska dhicin Yurub iska dhicin America iska dhicin Australia iska dhicin India hadda adduunka kufsiga u haysto number 1 kamaysa dhicin nin kufsanayo qomuluud Muqdisho waxa ka dhacday 3 bari ka hor nin baa waxa lagu kufsaday Muqdisho nin ayaa waxa lagu kufsaday Allahumma najina Muqdisho waxaana kufsaday dadka Muqdisho awoodda ku leh waxaana la kufsaday dadka laga awood badan yahay ninka isbitaalka Muqdisho ayuu ku jiraa ilaa haddana cid ka hadashay iyo cid ka dhidhiday iyo cid u hadlayso ma jirto telefoonkiisa website la soo galiyay shalay maanta kuwa la soo galin doona qofka ogeena hadda ha ogaado nin baa waxa lagu kufsaday Muqdisho dadka laga fir badan yahay waxaana kufsaday dadka Muqdisho awoodda ku leh nin meeshii laga hadli lahaa ibtilada meesha ka dhacday lagama hadlaayo Galdogob iyo gabar yariisa oo sanad ka hor dhacday sanad ka hor yaa dhigay last year dhacday ayaa waxa laga dhigay maanta la isku oohiyay qof walba oo ka soo hadlay waxaan ku sameeyay dabagal isoo uga hadlay iyo hadaladiisa fiiriyay bal ninkan ila daawada ma dad buu caynaya ma gabadhu ka dhidhinaya ma gabadhu u heelinaya ma daacad buu u hadlaya bal ninkan wuxuu sameeyay ila daawada
waad qarraxmaysaa hadda gabdhaha qaar ba Facebook waxay soo qorayeen cadow kale oo rag macnaha rag ahayn malihin wax noocaasa haba taas macnaha qofka xanaaq iyo waxaas ka keenaya gabadhan miskiinta ah ee raggan saddexda ay kursadeen warna alla wurdkood kale ama suldaan ha dhalo ama xildhibaan ha dhalo ama ay dhale ha dhale gabadhan dadkii meesha joogay iyo goldogobta la sheegayo iyo culimada naftirkooda wallahi waxaan maqli jiray maanta yawm al-qiyaama cadaabka waxa ugu badan baan maqli jiray waa culimadu ka hadlaysa ma aragba wargabdhahan masaakiinta ee la kufsanayay la xoogayay la farxumeynay culimadii ka hadli jirtay iyo dadkii ka hadli jiray aaway suldaan baa dhalay kuleeyna cala wurdkiisa wax suldaan dhalay anagu ma naqaan suldaanka naftigiisa tuug dhalay wallahi bila oo ilmiis intuu baskoolad wuxuu yiri gabdhaha islaamka orday soo kufsada way hadduu sadhin suldaan dhan baa dhalay baa lagu leeyahay xildhibaan baa dhalay tuuga dhashay wallahi la hawla wala quwwata illa billah azim wala hawla wala quwwata wax laga xumaadaan wallahi arkay way gabadh miskiin ah oo cawra ah oo intii la qaawiyay leeyahay waxay leeyihiin bawnaya forso kulaha dikala wallahi midida ku sii geliyahay حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله قل دقبت أنا شيء يمين الهين علماء أو دي ماشي دقنا داوي بس واحد علماء ما لها نعلى ورد كدي قل دقبت هذا كيالك علماء نفترك هذا ونارتك بدن به والله أنا إلهي بيقولك أنا سيحاني قبل يصور درتي صور كهذا أنا جو يابن أو عدكينا أنسفي عن دقيسنين أي هذا وحادنا مارتي سلايفا ولا يجوب صادرة فيديوجي وين كرير إلهي وان كنت دارتي لكن تاشيتا والله وين يابه وان صوفرس ماذا حي حنوني واي قبل مسكين الله كفصانية محل وحبيه لي كرابة إنه بجورسدو إنه بعير ومهرسدو به لي كراي صوبته وحبيه محيتها صوبته قبل iga rale hada ninkana arkaysaan ninka la dhahayo carab dadka soo wada galay caawa social media Facebook caawa isku soo goray oo daawasho in la daawado usoo aadaan iyo waxa ka hadlaan iyo say ku soo galeen usoo aaday waa dhashi daba casar dhashiisii waaye waa dadku asaga tababaray daba casar hadda waxa dhacday sanad ka hor ayaa waxa dhacday dadka deegaanka u leh Galdow iyo asaga xoogay conflict ah dhex maray iyo gabar la soo doontay oo asaga uu dhalay gabadhiishaas uu ka xuma in laga guursado oo cugdadu halka ka soo qaaday ayuu daba casar wuxuu shalay markii ahayd anaga maalinta shalay noo ahayd ayuu Facebook-giisa live u soo galay asagoo daawanayso dhowr boqol qof asagoo daawanayso buu gabadhii qaawuneyd dadka la sheergareeyay daba casar meeshu ka keenay asaga yaqaan asaga sheergareeyay dadka dhanna u gudbay sheekadan last year ba dhacsan in sheegayba dadkii haysteen hadii la gudbinaayna markaas la gudbin lahayd dadkii helay qof gadaashaas ka bacdi helay ma jirin daba casar ayay gacantii soo gashay shalay markii ahayd asagana Facebook dadka la sheergareeyay asagana gudbiyay asagana xumeynay Galdow iyo soo uga hadlay waa aragteen daba casar markuu shalay ka hadlaayay ani ma daawan waa la sheegay waana arkay YouTube ku arkay daba casar ka hadlaayo Galdow marka waxaan dadkan faafiyay waa dhashi daba casar oo dadku asagoo iskuul ka soo saari jiray waa arday kamid ah Facebook-na soo wada galay asagana saa u gudbiyay asagana ka wada qaateen asagana ku wada xiran yihiin hadda been moodaan daba casar daagashan Facebook-giisa waxa ka raadisaan carab mid kala dhahayo waa saaxiibkiisa koowaad oo ugu jira dadka ugu horeeya qof ugu sarmaray waxa u malna Facebook aan Facebook ma isticmaalo waxa u malna qofka la haashay ama la sheegaysatay inuu kor imaanayo marka dadkaas uu kamid yahay dadka ka hadlana asagoo ahaa dad badan baa ka hadlay lagama hadlayo waxa ka jiro gabdhaha ku sanaya Kenyaatiga Ethiopianka Ugandayska Muqdisho lagu kufsanayo dadka la dilaayo Muqdisho lagu dilaayo Ugandaysku dilayaan lagama hadlayo wiil yar oo Soomaaliya oo 10 jira gabar yirisa farxumay khalad ka dhacay in la isku oohiyo dadka Ugandaysku dilayaan inta kufsadaan hadina dilayaan aan laga hadlaynin midaas waa mid ka weyn waa siyaasad anaga naga weyn waxaan iga weyn ana ka hadli karin waa maskaxda ma qaadan karto intan la isku oohiyo diin iyo waarna lagu caayo waxyaalo ka weyn aan laga hadlaynin
baalka waxaa ka bartay cali qalif kale maanaa waalan mise cadan baa laga heesooyaa mar walba saas kuma maaha anima hadda waalan mise cadan baa laga heesooyaa dadkan wax sanad ka hor dhacay soo cusboonaysiiyey oo raba inay dad isku daraan hadda cunugan hadlaayo wuxuu leeyahay waa dadka laga tira badan haddaa sii dhegeysta wuxuu leeyahay waa dadka laga tira badan yahay goldogob dega waa goldogob looma isticmaalo wax laga tira badan yahay iyo wax laga yar yahay dami waxaa loo yaqaana dami hargeysa magaala meel ku taala waxaa loo yaqaana dami waxa la yiraahdo oo Puntland laga isticmaalo dami ma jiro waxa loo isticmaalo waa laga tirbadaya ma jiro weligeedna laguma dhaqmanin xaafad qofka lagu magacaabay kama jirto koonfurta daadid dadka waxa lagu leeyahay midi baa laga gadanaa nima midi ku sameynaya dadka madhimaanka midi u sameynayaan way ka gadanayaan wala baxaya waa lagu soo tuuray dib loo soo celiyo midgaan iyo xunka midi noo sameeya dadka waxa anaa ku dhaqana manihin hadaa meesha soo gelisay dadka laga tirbadan waayo gabadha waxa laga xoogayna qabiilkiisa ku ogaataan baartaan gabadhan anaa ku sheegay qabiilkeeda waa gabar Puntlander waa gabar mudug u dhalatay waa gabar goldow ku dhalatay ku nool qabiilkeedana waa halkaas ku abtirstaa waana gabar Soomaaliyeed ina ka dhidhiseen ina ka xumaadaan ani kama xumaadeen laakiin si uga hadasheen intiina badan iyo waxyaalo ka badan noloshiina soo aragteen ina ka hadleen iyo waxyaalaha Ugandeski iyo Ethiopianka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ku sameynayaan oo Muqdisho ku nool iyo agaarkeeda aan laga hadlaynin gabadhan walaalaheed kufsadeen yiriiriska ina balaayo ka dhigtaan oo haddana faafisaan inikii waa faafinaya inikii aan haddana ka hadlaaya oo dhahaysaan waa soo hinaysan kaaga daran wuxuu yiraahdaa gabar baa ii soo dirtay gabadha ku soo dirtay adiga nin baa taa gabar baa ku soo dirtay laftigeeda taas waxa u baahan tahay haddii cadaalad iyo diin lagu dhaqmayo laftigeeda waxa u baahan tahay in la dabagalo gabadhaas maxay ku tahay oo waxaan fadarada ku soo dirtay taas laftigeeda waxay tahay baaritaan iyo dabagal u baahan haddii run isku sheegay Soomaaliya aniga khalad yaa lii fahmin aad baan uga xumahay waxaasna weligeed kama dhicin meeshaas haddana khalad yar oo dhacu ahaa wiilashaasna wixii ilaahay ugu talagalay helayaan haddii dil noqoto haddii cafis noqoto haddii wax kala noqoto haddii oday noqoto haddii walaal noqoto hawshaas dad bay gacanta ku haya waa hawl la soo xalinayay waa hawl la qariyay ahayd daba casar iyo shaydaamada la shaqeeya haddii faafiyeen aad baan uga xunahay gabadha yirista in mar labaad hawada lagu soo celiyay situationkii laga soo baxay oo la soo dhaafay aad baan uga xumahay wallahi wix meesha ka dhacay wax loo dulqaadan kara ma ahayn wax bilaadan ka baxsan bay ahayd وبالله التوفيق halkaas aan uga baxaya qofkii dib iyo arkana cafis aan weydiisanaya waana ka baxay